xogayihii hore ee gobolka Togdheer Cabdirasaaq Kayse oo maanta TV-ga Ariel ku siiyay waraysi gaar ah hotel Liburco ayaa ka warramay sababta uu galay xisbiga wadani oo dhawaan uu kamid ahaa siyaasiyiin xisbigaasi uu magaalada Burco xaflad soo dhaweyn ugu qabtay waxaana u dhacay waraysi kooban oo dhex maray xogayaha sida tan waxaad xogayihii hore gobolka Togdheer intii xilka laga qaaday dib lagu ma arkin hadda waxaad ka soo dhex baxday xisbiga wadani oo siyaasiyiin aad kamid tahay adiga iyo siyaasiyiin kale dhawaan ku birtay xaflad xisbigeedii qabtay xisbiga kulmiye maxay idin kala hadleen xisbiga kulmiye run ahaantii wuxuu noqday booraan marka qofku ku dhaco runtii horaa waxa loogu mahmaahay booraan dawaca qodin ku dhici doontaan war ma haysid runtii heer kulmiye booraan bay soo wada qodeen booraan baa noqday lagu dhaco qofkuna markuu halka ku dhaco sida uu uga soo baxaa ay adag tahay kala doorashada aan eegay siyaasadaha xisbiyadu ee ka duwan kulmiye iyo kuwa la midka runtii waxay soo baxday inaan kulmiye maanta wax la mid ah jirin oo yahay ka ugu liita xisbiga tartamaya saawgeed qanaaco badan waxaan ka helay oo aan ku qanacnay barnaamijka siyaasadeed habdhaqanka siyaasadeed ee xisbiga wadani leeyahay taas waxay kaliftay inaanu iskaga haajirno ama aanu ka guurno dadka in badan waxay dhahaan waa laga digir inaanu ka guurno si rasmi uga guurno xisbiga kulmiye aanu inta badan soo ahayn una guurno xisbiga wadani dimuqraadiyadda aniga ragga ku biirayba maanta in qaar naga mid ah ayada ay muddo yaraani ka soo wareeganay xilalka gobolka ugu weyn ka hayaan inteeda kale aanu hiigsanayno halka kuwaas joogan meel ka sarreey adiga iyo siyaasiyiinta kale isku deegaanka tihiin xisbiga ka soo baxay xilalka la idinka wada qaaday sida gudoomiyaha hore degmada Doqoshiya adiga xilka laga qaaday marka ma loo karaa waad ku carabiirtan xisbiga marka carooteen ba xisbiga wadaniga waa su'aal fiican ruuxantii maana ku carabiirin waxaan ugu carabiirin in badan aan xilka haynin baan ka sii madayn xisbiga kulmiye xukuumaddaanu ka tirsanayn xukuumadda waa sunnaha dawladnimo in xilka la isu dhibo lagana qaado qofka waxa weeye xilkan laga qaaday muu ahayn mid nagu kaliifay ama cadan nagu kaliiftay ma jirin inaan wadani ka mid noqono laakiin waxaan aragnay waxa kulmiye dhex yaala inaanay ahayn wax bulshada aanu annagu ka soo jeedno iyo annakaba aanan qanaacano noolahayn waxtar noolahayn xogayihii gobolka markii waxaas dhacayaan hore abaaruhu waxaan dareensanahay waxaan bulsho badan dareensanayn oo ah inaanay danaynaynin wixii ka dhacay gobolka dayci faraha badnaa bulshada gobolka degtaa kuwa aanu mataleeyahay haddii xisbiga kulmiye aanu ka tirsanayn aanu bulshadii aanu matalayna aanu wax danayna aanu kulahayn ama aanu eegaynin oo ay uga wax weeye faa'iido badnaayeen bulshooyinka gobolka ku dhaqan iscaawinaya dimuqraadiyadda ka haydeen inaanu muuse oo la garanayo waxa weeye background ka hore u lahaay ka maanta ku dhaqmaayaba inaanu u doorano bulshada horkacna weynala ahaan weyday taasaa kaliftay inaanu u diga rogno ama aanu u guurno xisbiga wadani waxa nooga muuqday xisbiga wadani waxaas oo dhan ka duwan isagoo xisbi mucaarada isagoo aan waxba gacanta ku hayn ayuu uga soo gurmad horeeyay xukuumadda xilliga abaaraha runtii waxa weeye waa waxyaabaha soo jiidashada nagu kalifeen xisbiga ka mid noqono bulshada u danqanaya waad ogtiin deegaamada warbaahinta wada socoteen deegaamada aanu ka soo jeedno runtii dayac badan baa hareeyay waxa kowka imika inuu waxtarka xisbiga wadani isagoo xisbi mucaarada inuu u ballan qaaday inuu dayac badan oo hayay oo bulshada ka daboolo way tahay rajaynta laga bad ka qabtay inuu xisbiga wadani soo baxay maadaama doorashadii muddo kooban runtii maxamed waxaanu ka qabnaa 100% inaanu guuleysanayn sababtoo ay tahay doonista shacabka ayay ka muuqataa halka ay guushi jirtaa wadaha uu ku jiro gobolkan aynu joogno waa gobol xidhan weey ruuxantii si kasta marka loo eego haday dhaqaale tahay iyo haday tahay shaqo haday tahay oo dhalinyaradii ay ka kow tahay waxa weeye waa gobol aan wax laale maanta wax yaala jirin taana wax u soo xukuumadduna waxay ka tirsan tahay daway ka mid tahay xisbiga kulmiye sina ka wada dheregsanahay waxaanu ognahay dhulkiisii danta guud ahaa la haystay maanta in dhamaan gacanta laga wada saaray lawada iibiyo xukuumaddu iibisay waxaanu ka dheregsanahay in airportkeena xiran yahay oo maanta airport laanayna hayso waxaanu wada ognahay in maanta ay tahriibta aynu la qabno waxa weeye Soomaalida ama Soomaaliland aynu la qabno ee loo tahriibayo dalalka shisheeye in tahriib kale inoo dheer tahay gobolkeeni ay laba tahriib isu raaceen idii naga saar lahayd xaaladda aynu ku jirnaa waa xisbiga wadani aynu u midowna sideen xisbiga codkeeni cududeena ugu biirin lahayn una noqon lahaa xisbi ku hanta kursiga boqolkii 90 ka badan saanu aaminsanahay waxaanu leenahay taa aynu ka rumayno ka run sheegno waxa weeye aynu gacmaha isqabsano aynu iskaga baxno waxyaabaha lagu soo dhex tuuray ee dadka aan dantayno hayno aynu soo dhex tuureen maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto Ariel TV Burco.